بسم الله الرحمن الرحيم waxay suurto gashay inaan waraysi la yeesho Cabduqaadir Yaasiin Salwe oo kamid ah jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Columbus Ohio ee dalka Mareykanka. Cabduqaadir marka hore ku soo dhawow hoyga Banaadir TV. awas waa ku dhawahay waana ku mahadsan tahay waqtiga isisay. Cabduqaadir Yaasiin Salwe oo kamid ah jaaliyada Soomaalida ee dalka Mareykanka ayaa inta badan waxa uu falanqeeyaa isla markaana uu la socdaa xaaladda siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika. Cabduqaadir ayaa waxa ka wareysan doona oo inta badan diiradda saari doona dagaaladii dhaxmaray ciidamada Puntland iyo kooxda Daesh iyo sidoo kale xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Cabduqaadir haddii aad tihiin jaaliyada Soomaalida gaar ahaan jaaliyada ka soo jeeda Puntland bal faahfaahin naga sii dagaalka Puntland iyo Daesh ku dhaxmaray buuraleyda gobolka Bari waxa aad ka ogtihiin. awas marka labaad waa ku mahadsan tahay fursadda qaaliga aad isiisay. waxa weeye horta arrintan niyow aad bay maaragtay noo samaysay. keliya ma ahan jaaliyad ahaan Puntland, Soomaali oo dhan waad ka warqabtaa wadankii dagaalo badan oo waxaa jiray maamulada la galeen kooxahan shabaab hadday noqoto galmudug ama maaragtay hirshabeelle ama jubbaland ama koonfur galbeed. laakiin arrintan hadda Puntland way ka duwan tahay waayo Daesh waa niman ajnabi ah oo maaragtay ka yimid u badan wadamadan carabta ah iyo Geeska Afrika. marka dagaalkan waa ka duwan yahay dagaaladii aan naqaanay oo shabaabkii dadkii Soomaalida argagixisadii Soomaalida ahayd waa ka duwan yahay oo waa dagaal maaragtay lagula jiro ajnabi kusoo duulay dalkaagi. sababtu kaga duwan yahay waxay tahay dee qofka Soomaaliga la qaldo oo shabaabka ah si qaas unbaad iskaga celin kartaa, laakiin qof ajnabi ah oo wadankaaga kusoo duulay marka arrintaas baa maaragtay miisaan weyn ugu yeelatay haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Columbus Ohio. khasaare inta la eg ayaa soo gaaray labada dhinac gaar ahaan dagaalka. khasaaruhu ma yara. nimankan Daesh siiba gobolka Bari in muddo ah maaragtay bay isku aruursanayeen, isku hawarwacdeen, meel walba iskaga yimaadeen. welina waa siiba maaragtay bariga fog oo hadda meelihii ugu darnaa waxaa ka mid ahaa meel la yidhaahdo Tasjiic oo maaragtay ku yaala buuraha Galmiis. waa magacyo hadda aan runtii aan baranayo, magacyo aan horey u aqaanay ma ahan. arrintaasna waxay keentay dhibaato maaragtay xataa ciidankii Puntland meesha ka soo gaaray sababtoo ah buurihii ila meel wadooyin la marana ma jirin. miinooyin badanna waa ku aaseen oo xataa waxay isticmaalayeen droomo maaragtay oo ay ku xiraan waxyaalaha qarxa. waayo dadkan waa dad maaragtay dagaalyahanno kasoo dagaalamay Suuriya, Ciraaq, Lubnaan, meelaha ka yimid bay ahaayeen. marka alxamdulillah waxaa lagu guuleystay dagaalkii Tasjiid ee ku yaala buuraha Calmiskaat oo daraad maaragtay ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada maaragtay Puntland iyo kooxda Daesh. mar aan arrintan aan ka wareystay maxamed axmed oo loo yaqaano Fadhiyo oo maaragtay ah afyeenka howlgalka ka wada buuraha ayaa sheegay in ciidamada Puntland ay ku guuleysteen meelo badan oo ay qabteen idaacadaha waad ka aragteen oo xataa ay laayeen niman badan oo ajaanib ah. marka waxaan dhihi karaa waa guul. qaar ka mid ah ciidamada Puntland waxaa ka soo gaaray dhaawacyo sida aynu maqalnay. marka waa sidee xaaladooda, ma sahleen dhaawacyadaasi gurmad iyo caafimaad? runtii gurmad dadkii gobolada maaragtay meesha Puntland dhexdeeda gurmadyo kaga yimid maahana gurmad oo hadda ka yimid maaragtay dowladda federaalka ma jirin. xataa markaad u fiirsatid marka laga bilaabo meesha la yidhaahdaa Camaara
ilaa 250 kilomitir ayay waxay u jirtaa Boosaaso oo waxa ku yaala saldhigyo badan ay ka sameysteen baa jirta ilaa iyo 40 godod iyo saldhigyo laga qabtay baa jira markuu dagaalka socday daraad dhaawacyo waa jiraan oo maaragtay dhaawacyo liita laakiin runtii waxaan dhihi karaa Puntland aad bay ugu guuleysatay inkastoo ay dowladda federaalka ay ka gaabisay waxaa jirta in jaaliyadda Soomaalida ee Puntland ee ku dhaqan Mareykanka iyo wadamada kale Yurub iyo Afrika iyo dadka kale ee Soomaalidaba ah inay bilaabeen inay qaaraan ama lacaga u ururiyaan ciidanka maamul goboleedka Puntland marka hawshaasi qaab cinkee ay u socotaa runtii arrin aad u fiican oo lagu farxa waxaa sameeyay guddiyo ka dhisan gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada la yiraahdo Minneapolis oo ay sameeyeen casho iyo isku imaansho oo miis walba maaragtay laga bilaabay ilaa $1 maaragtay dadka ganacsatada ah qofkii $1 qaadanayo miisas kala jira ilaa 500 qofba wuxuu awoodo runtii lacag badan bay aruuriyeen barnaamijkaas mid la midana hadda waxaa laga bilaabayaa Columbus Ohio guddiga Somali community-ga waa arintaas waa ku howl jiraan waxaan kaloo maqlay Seattle Washington in ayadana laga bilaabay marka arinta maaragtay si fiican bay u socotaa arintan waxay isku keentay Soomaali waayo wadankii waxa ku soo duulay waa ajnabi marka in laga hortago oo maaragtay daacishna waa taqaanaa meelahay galaan dhibaatooyinkii meesha ku abuuraan marka cadowgan soo duulay waa in la iska qabtaa laakiin raggaani soo duulay muddo ayay halkaasi isku urursanayeen isla markaana ay tabaabusho ku jireen marka maxaa Puntland hore ay wax uga qaban weysay arintan waxay nimankan meesha soo galeen xilligii dowladdii Cabdiweli oo waatii Cabdiweli maaragtay Cabdiweli gaas ku furnaa dagaal oo kii dhinacan Laascaanood iyo Tuqraq marka Janis bay u heleen ay ku yimaadeen dhulkan buuraha fog oo ilaa Gardafuur ilaa markii laga bilaabo maaragtay Qandala Caluulo iyo dhulkaas oo dhan waxay bilaabeen dadkii deegaanada inay baad iyo lacag iyo maaragtay hanjabaadyo marka waa iska taqaanaa qof maaragtay markii cadaadis badan u yimaado haddana waxa arintan ay ka bilaabatay shacabkii baa kacay oo isku duubni iyo kalsooni tusay maamulka Puntland taasaana maaragtay u horseeday in maaragtay Siciid Dani uu arintan ku guuleysto Cabdiqaadir Yaasiin Salwe inta badan waxaad falanqaysaa oo la socota xaaladda siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika haddaba dagaalkani u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo kooxda Daesh halis cinkee ah ama saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa Somaliland hadda waxaan dhageysanayay maaragtay nimankii guddiga maaragtay daryaalka iyo ciribtirka argagixisada Puntland oo guddiga uu magacaabay madaxweyne Dani dad badan baa waxay aaminsan yihiin nimankan inta badan waxay ka soo galeen dhinacan Somaliland oo ay kaga soo galeen buurahan silsiladda Golis Somaliland waxaan in muddo ana way waday oo sababtoo ah waxay rabtaa inay caalamka ka dhaadhiciso in koonfurta ay dhibaato ka jirto qaxar dagaal dhibaato oo ay rabto ay ku raadinayso ixtiraaf marka Somaliland dad badan baa maaragtay nimanka falanqeeya siyaasadda waxay aaminsan yihiin in Somaliland arintan ku lug leedahay oo maaragtay ay dabada ka riixayso si ay u hesho ictiraaf aqoonsiga dhinaca kale markaan eegno xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya waxaa ka taagan xiisad gaar ahaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo ragga siyaasiyiinta ka soo horjeeda gaar ahaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xubno kale oo siyaasiyiin ayaa waxay dhaliilsan yihiin qaabka uu wax u wado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddaba haddii aad tihiin jaaliyadda Soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyadda ka soo jeeda Puntland sidee u aragtaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya
horta xaaladda siyaasadeed soomaaliya meel xun bay maraysaa. waxaa la socotaa xilligii madaxweyne farmaajo uu ninka la yidhaahdo madaxweynaha hadda waddanka xasan sheekh uu ku jiray ololaha doorashada, uu ku andacoonaya mar walba doodiisa ay ahayd waxba lama samayn karo hadday maamulada waddanka ay qaar maqan yihiin, waa in dib u heshiisiin la sameeyo, miiska la wada fadhiisto, la wada hadlo, saas baa horumar lagu gaari karaa. haddana markii uu kursiga ku fadhiistay waa arki micnaha waa 365 degree buu iswareejiyey oo ninkii aragtida midnimada soomaaliya raadinayay hadda ma ahan. ra-iisul wasaarihiisana waa sidoo kale. waxaa la socotaa ra-iisul wasaaraha markii uu madaxweyne farmaajo xilka hayay waa tuu ku andacoonayay in jubbaland ay u madax bannaan tahay doorashadeeda. maalin dhaweynna waa tuu axmed madoobe ku eedeeyey inuu ka baxay heshiiskii golaha wadatashiga qaranka uu saxiixay. waa run, axmed madoobe wuu saxiixay, laakiin waxay ahayd in maamuladoo dhan isu yimaadaan oo la qabto loo mideeyo guddi doorasho oo dowladda federaalka ah. marka wuxuu hadda ku eedeynayaa sidee baad uga bixi kartaa heshiiska. axmed madoobena wuxuu leeyahay dee maamulooyinkii oo dhan baan maaragtay aan beesha ku jirin. tan kale khilaafkii markuu sii dheeraaday, dowladda federaalka waa tii u dirtay ciidamada haramcad jubbaland. taasna dhibaato kale ayay keentay oo waxyaalaha hadda puntland ay ku andacoonayso kale waxaa ka mid ah dagaalkan annaga hadda aan kula jirno daacish. waxay ahayd dowladda federaalka inay ciidan soo dirto ama rasaas ama daawo ama wax noocaas oo kale ah. marka khilaafkii waa sii dheeraaday. marka dowladda federaalka Soomaaliya kaalintii looga baahnaa kama qaadan ma leedahay dagaalka dhexmaray Puntland iyo kooxda Daesh. kama qaadan. hadda maalin dhaweyd bay ka hadleen inay ka xun yihiin dagaalka meesha ka dhacay, laakiin ka hadalka waxaa ka horeeya ficil. dowladda federaalka waxaa laga rabay ficil, inay meesha yimaadaan, inay guddi soo diraan oo maaragtay oo arrintan u howlgala oo qiimeeya dhaawacyada meesha ka yimaada. dowladda federaalka ma sameyn. dhaawacyadii xataa waxaan maqlay in loo diiday oo maaragtay baasaboorradii oo si dibadda loo qaado oo ilaa hadda dhaawacyadii lagu maaragtay dhayayo magaalada boosaaso, qaarna la keenay garoowe. marka dhaliilo badan baa jirta oo maaragtay dowladda federaalka arrintan ay ka gaabisay ayagoo u fiirinaya qaab siyaasadeed. cabdiqaadir, madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu maalmahan iyo muddooyinkii ugu dambeeyay u ololeynayay doorasho qof iyo cod ah inay ka dhacayso dalka. haddaba suurtagal ma tahay iyadoo Puntland iyo Jubbaland ay maqan yihiin in doorasho qof iyo cod ah la qabto oo madaxweyne lagu doorto? anigu taa waxaan u arkaa waa riyo. waa riyo wuxuu hadda wado madaxweyne xasan sheekh. ummadoo dhan baa og in dalka xilliga hadda lagu jiro aysan doorasho ka dhici karin. sababtoo doorasho sideedaba waxay ku imaan kartaa ama doorasho dadban ha noqoto ama doorasho qof iyo cod ah ha noqoto. waa wax in lagu heshiiyaa. maamuladii baa maqan, jubbaland baa maqan, puntland baa maqan. waxaan maqlayay khilaafiye iyo waxsaas oo maaragtay galmudug xaggaas ka jira. marka haddaana lagu heshiin ilan doorasho waxay ku dhici kartaa dalka muqdisho keliya ma ahan. marka madaxweyne xasan sheekh doorashada ma wuxuu ku qabanayaa muqdisho keliya? marka taas waxaan u arkaa waa wax qalad ah. waa wuxuu shalayna kula dagaalayay farmaajo markuu yiri doorasho qof iyo cod baan qabanaynaa. uu yiri waxaan wax macquula wax soconaya ma ahan. marka arrintii shalay adigu aad diidaneed inaad maanta maaragtay aad tiraahdo doorasho qof iyo cod baan qabanaya, taas waa waxyaalaha maaragtay ay maamulada ay kusii kala fogaanayaan. marka waxaan u arkaa taa xal ma ahan. hal ku dhigi madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii uu doorashada kula jiray ama tartanka ku jiray waxaa kamid ahaa Soomaali oo heshiis ah, dunida heshiis la ah.
marka ma la dhihi karaa marka xilligan marka la fiiriyo xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya halka ay taagan tahay madaxweyne xasan sheekh waxa uu qaaday wadadii madaxweynihii hore ee Farmaajo anigu waxaan dhihi karaa wadadii farmaajo uu qaaday mid kasii fog oo kasii xul inuu qaaday sababta heshiiska golaha wadatashiga qaranka sidiisa wuxuu ku salaysan yahay markii loo fiiriyo xagga dastuurka guddi midaysan oo doorashada maamulada iyo dowladda federaalka oo wada socda in la qabto doorasho qof iyo cod ama doorasho si dadban ah marka taana labadaana maaragtay kamuusan shaqeyn marka ma dhici karto doorasho qof iyo coda ama doorasho si dadbana loo sameeyo waa in laiskugu yimaada tendadii afisione oo maaragtay iyo xildhibaanadii wax dooranayay ugu dambeyn ama su-aasha ugu dambeyso aan jeclahay inaan ku weydiiyo cabdiqaadir waxa ay tahay Puntland dhowr jeer ayay xiriirka u jartay dowladda federaalka Soomaaliya hadda sidee lagu soo celin karaa wada shaqayntii dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland aniga waxaan aaminsanahay sida ugu fudud waxa weeye waxa kaloo maaragtay jira maamulada dhowr maamulaha wadanka ka dhisan Jubbaland Koonfur Galbeed Hirshabelle galmudug ayaga laftirkooda waa ka gaabiyeen arrintan Puntland iyo dowladda federaalka khilaafkaas in muddo jiray waxaa la rabay erga ahaan maamuladaas xataa inay yimaadaan oo gobol dhigaan oo la wada fadhiisto la wada heshiiyo sababtaasaan maaragtay wax sii socon kara ma ahan ummadda Soomaaliyeedna wax ay arrintan ay ku daawan karto in dowladda federaalka iyo maamulka Puntland khilaafkooda uu intaas sii jiitamo oo dheeraado waa laga fiicanya marka arrintan in wada hadal iyo maaragtay xal laga gaara aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Yaasiin Salwe oo kamid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Columbus Ohio ee dalka Mareykanka oo qadka telefoonka igu waramaya Cabdiqaadir aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay waqtigaada qaaliga ah oo aad qayb naga siisay aways waa mahadsan tahay adiga iyo bahda saxaafadda waan idin mahad celinayaa